oo meel kasta iiga dhagan timaha iiga dhagan caruurtii oo dhan baa qosol dhacday dadkii ugu qoslaya ani waxoogaa waa shoog baa igu dhacay marka subaxii markaan hurdada ka kacnay ayaan waxaan aragnaa magaaladii oo dhan oo militariga galabnimad ka bacdi ayaa raadiyaha ka hadlay Siyaad Barre heer waxaan ka gaaray inaan noqdo aan u ciyaaro qaranka Soomaaliya ayaa ninka Ameerikaanka wuxuu yiri markaas waxay ugu tiri Bashiir baadiye ka soo tag iigu moogaal xamar maalintaas waxaan ku tashtay ina miyiga ka tago gaalkacyo ku shubay gaalkacyo igama fogeyn waxay inoo jida 35 kilomitir waan orday dariiqan ku dhacay saan u ordahay gaalkacyo soo galay meesha baabuurta ka baxaan bartamaha gaalkacyo suuqa caana waa u jeedaa maanta wali baabuurka markaas baxayaan arag dadkii waa saaran yihiin hadduu rabaa inuu baxo xoolaha rimoorka dambe saaran saan u orday cunuga oo daba kafuul la yiraahdo oo dadka lacagta ka gura ayaan u tagi waxaan dhahnay 20 shilin baan haystaa xamar baan u socdaa wuu ifiiray wuxuu yiri 20 shilin ilaa xamar ma soconayso ma yeelay walaalo ku bariyay dhaafaanda 20 shilin qaada yarku yar fiican baa wuxuu sameeyay 20 shilin buu iga qaatay wuxuu yiri hore ma koraysid waxaad koraysaa rimoorka xoolaha dhex galaysaa waxaana mashaakil maahan waan orday rimoorkan xoolahan dhex galay baabuurka waa dhaqaaqay waan soconay baabuurka rimoorkan ku jira bus caradii iyo buski ayaa aniga arigii nagu habsaday ilaa habeenkii dhan baan soconay waxaan caaw ma leh waxaan cunana ma leh maalintii oo dhan waxaan xasuustaa afartii habeenimo ayaan waxa maqlaa dadkii oo ashahaadanaya ayaan hurdo ka kacay waan gamay caruur baan ahaa mugti dadkii ashahaadanayaan maqlay markaasna maxaa jira maxaa dhacay ilaa waxaan maraynaa meel baabuurta ku gadoonto oo khatara على كل حال صبحي أيام واحد من اللي يراهدو مقالة اللي يراهد بلدوين ماشي أو كنترولك بلدوين أو عسكر تاجن تاي أيام نمت ماشي مركب بابورتو استاجن ولا بارا وهي حدود إثيوبيا كمان فوق وحن أركا دتكيو بابور كهورة كدقي وحوجا بنان كتاجن أنا بابور كأريجان كود عشرة وفيرنا هي ماشي دول دلال كان كفيرنا هي waxa banaanka waxa ka socda dad wax ilaa amarkiis meeshiisaan u fiirinahay daldaloolka ugu fiirinahay caruur yar oo horay saarna oo naag wadatay oo xamar u socday caruurtii ay arkay anoo meesha daloolka fiirinaya markaas inta hooyadu u caan waxay dhaheen hooyo fiiri qof baa ku jira meeshaas naagtiba ay soo dhawaatay tir maxaa qof baa ku jira ma ariga dhexdiis ha fiir hooy naagti baa aragtay markaas ay soo dhawaatay waxay tiri maxaad meesh ka sameynaysaa markaas waxaan ku dhaw walaalahay sheegin aamus idhaaf markaas intii mar kale ay soo dhawaatay magaca markaas aan dhahay Bashiir Maxamed Cali Guri markaas intii saa u fiigtay way tiri soo dego ilaahay amarkiis dadkii baa arkay oo maqlay kale naagtaan ila hadlaysa dadkii oo dhan baa soo yaaco fiirinaya waan soo degtay iyo kii darawalkii baabuurka waday iyo cunugii lacagta iga qaado daba ka fuulka ahaa iyo dadkii dhan baa ay soo aaday ani waa soo degtay anigu hadde wasaqda ugu taala buska igu yaala oo meel kasta iiga dhagan timaha iiga dhagan caruurtii oo dhan baa qosol dhacday dadkii ugu qoslaya ani waxoogaa waa shoog baa igu dhacay waayo waa lagu arkay askar baa lagu geynaya waa lagu celin doonaa ayaa maskaxdayda isla markii soo gashay ya waa baqay laakiin nasiib waxaan ku lahaa naagtan dhahday soo dego ila hadlaysa waxba baan isku nahaba way garatay markaan dhahay Bashiir Maxamed Cali Guri
waa gabaran waa aad isugu dhownahay in adeertii labaad miya ma aqaan hadda qoftaas waan hilmaamay qoftaas ay waday waxay tiri nakeen saan u soconay suuqa xoolaha ee xamar ayaan waxaan tagnay aduu 12 meelahaas baabuurkan galnay gurigeeda i geysay markaan guriga tagnay sariir baa geysay waxay tiri halkaas seexo galabnimadii ma aqaan 6 meelahaas 5 ayaa qof baa hurdada iga kiciyay waan salay waa kacay waan fiiriyay yaa kor taagan walaashay gabadha u sheegtay inay heshay marka walaashay ii timid waa i wada waxay ii geysay nin walaalkay oo asna xamar deganaa markaas labada kaliya walaalahay oo xamar joogay labadaas bay ahaayeenba walaalkay baan iskala joogay markaan 2 bilood joogay ka bacdi waxa yimid aabahay baa xamar yimid aabahay uu rabay inuu igu celiyo gaalkacyo iyo miigi wuxuu maanta u dhageyso halkan iskuul kuma geyn karno Cabdulqaadir waxa ma hayso walaalka maka walaasha ma haysato marka miigi ayaan kugu celinayaa waa inaad hooyo ku noqotaa iyo walaalihii kale ilaahay amarkiis walaalkay Cabdulqaadir iyo walaashii ay aabba isqabsaday waxay dhaheen lama celinaha aabba ma celinaysid waxay dhaheen anaguna la joogaya nasiibkay waa farx inaan magaalada iska joogo ala kulli xaal 1900 إيش قرمي دلتت لحدن إيوه سجالكي ودلشدي دولة دي سياد بري سفعان ما أنت سفعان ما نحسسته وحامن دقنا بوندير مركز سوق بوندير وحاب كل جنب برلمان كهراء سوماليا مقدشو مركز صبحي مركز هردة ككعناي أيام وحن أرجنا magaaladii oo dhan oo military meel kasta ciidan baa taagnaa magaalada dhexdeeda wax magaalada dhex gali karay ma jirin waa la xiray taasan ku xasuustaa bandow lagu sameeyay aadiyuna waa socday ciidamo waxa jiray baabuur wata oo magaalada ku soconayay oo dadka celinayay magaalada lama soo gali jirin galabnimada ka bacdi ayaa raadiyaha ka hadlay siyaad bar in dawlad cusub dhalatay ayuu ka sheegay saas daraadeedan ku xasuustaa dhalinyaro badan baa intay caleemo goosteen geeda qaateen magaalada ku yaacay waa la soo dhaweeyay ciidamada wallahi way ugu adkayd adeer nolosh xamar waayo nin miyiga ka mid baan ahaa marka haddaad magaalada nolol kale aad soo geshid oo magaalo waxa ahayd maba garanaynba wax kastaana way igu cusmaayeen baabuurtaan iyo waxaan yaacahay nolol kale ayaan soo galay dawladii siyaad bare ayaa waxay gaadhay kulay jooyinkii oo dhan wuxuu yiri hal meel baan la isugu geynayaa waxaana la geeyay Lafoole kuwii cool mooye Lafoole markii dambe waxay noqotay magaalo yar dawladda ka mas'uulahay si fiican baan lagu barbaarinay iskuul baan lahayn isbitaal baan lahayn wax kastaan lagu jiray meesha waxaan ku jirnaa waxaan ahayn baan u maleynayaa kun iyo xoga caruura gabdhaha jiray college ayaguna oo tuulo yar oo ii sheeg afgooyeliyada xamar u dhow ayadana Lafoole u dhow gabdhaha ku noolaa oo ayaguna college ka ahaa marka wiilasha Lafoole aan ahayn walaalahay Lafoolena waa salaamaya waa raggan la koray marka meeshaasan iskuulka ka galay iskuulkii Lafoole halkaasna wax ka bartay waxyaalaha ugu weyn oo aan ka gaaray halkaas Lafoole waxay ahayd college-ka waxaan lahayn team oo basketballka waxaan heer waxaan ka gaaray inaan noqdo aan u ciyaaro qaranka Soomaaliya oo la iga xushto teamkaygii cadceed ee Lafoole aad iyo aad baan u xasuustaa waayo saan u farxaan ogaa ya warqad baa waxay ka timid wasaaradda isboortiga ee Muqdisho ay college-kiga director-kayga u timid oo ay ku taalo in Bashiir Maxamed Cali Guri inuu galo qaranka Soomaaliya warqadii waa rumaysan waayay markaan arkay
directorka ay waxay xafiiskan ugu tagay markaas Bashiir qaranka Soomaaliya ku qaatay dhalinyarada saaxiibada dhan way farxeen wax weyn bay yahay aniga ma fahmaysaa marka niyo aad baan u xasuustaa baabuur baa la igu qaadi jiray waayo la foolo waa ka fogtahay xamar 20 kilomitir 25 maaqa inta u jidho meelahaas training halkaas galabti wiigi 2 mar 3 mar baan tagi jiray umaleynaa nin oo American aan tababari jiray halkaas maalin kasta baabuur la igu geyn jiray galabtiina la iga soo celinahay yar darawal ay wadi jiray waxa ku qosli jiray oo igu dhacay waxa ahayd markaan qarankii galay oo ciyaartii bilaabay ayaa ninka Amerikaanka wuxuu yiri nin yarkan waa caato waa inuu cunto fiican waa in la siiyaa waayo caatana waan dhuumnaa basketballna waxa loo baahan yahay xoog quwad baa loo baahan yahay marka directorkayga iyo isha college-kayga gaadhay in makhaayad la igu qoro Muqdisho aan ka casheeyo habeenkii markaan soo dhameystay ciyaarta inaan makhaayadaas cunto fiican college-kana kaligay wiil baa cunto ii karin jiray dhalinyaradan ka dhex baxay xoogaa taasna waa ku fiicnaa si aan u cayilo ma fahmaysaa marka wallahi beel niyo heerkaasaan gaaray laakiin muddo dheer uma ciyaarin waayo waxa ii soo baxay waxbarasho inaan banaanka aado